sideetankii bishii November ayaan Hargeysa imi dhowr cisho ka bacdina waxaan gurgurkaasi ma jiraayo waa jiraaba lagu yiro aniga eegan maanta idin hor fadhiya waa la kaxeeyay goobtii baa la geeyay nasiib darro markaa aan anigu xaafadda tagay waxaan u tagay ridiyoo jabtay oo fadhida oo kabni saaran yahay laakiin guriga hoos galbeedkiisa ama har qoodaalkiisa fadhida iyo gorgorkii oo tiirkii yaraa ee xerada ku taagan ayaa aniga la soo qallidaa oo intii aan anigu joogay wax kale ma dhicin islaantii hilib bay googoysay gacantaysa ugu qabatay gorgorkii waa ayay hoos qabatay gacan saxabadeedu ka gurtay hilibkii markuu cunay saxniga dharka lagu meeray biyo ku shubtay dadkana wuu soo degay biyihii buu dhex galay wuu ku dabaashay ku meeday markaas la sheego la ridiina waa tan way jaban tahay kabniin baa saaran anigu taa aniga ma aragtay hay heestan goljanno ee aan sheegaya siday ku timi sida weeyaan laakiin waa anigii markii hore ka hadlayay ama gorgor hal la sheegayo ama dameer hal la sheegayo ama geedibaabo hal la sheegayo ama waraabe hal la sheegayo kullayba anagu waxaan u jeeday ninkii wadanka ka talin jiray ee loo oran jiray Maxamed Siyaad Barre iyo tabcan inta la hal wadaagta afweyne marka laga hadlayo inta lamida ee adduunka ka jirta ayaa laga hadlaya marka hab sheeka bay u socotaa marka qaar kood iyadoo sheekadii hore lagu wado ayaa lagu yar hakinaya sheeka kale lagu gelaya marka taa la soo dhameeyaba tii lagu soo noqonaya halkii laga amba qaadaya way yara dheer tahay oo anigu kama gaarsiin karo marka inaan sharxo laakiin marka aan dhameeyo wixii su'aal ka yimaada ama wixii su'aal loo baahdo ayaa tabcan lay weydiin karaa waxay ku xidhan tahay waxay ka hadlaysaa inaan ilaahdo guud ahaan saddex waqti oo wadanka Soomaaliya la yiraahdo oo soo maray oo waqtigii saddex waqti oo siyaasi ah aan ilaahdo oo waqtigii gumaysiga sagaalkii sanadood ee rayidku ay dalka ka talinayeen iyo muddadii ka dambeysay ee xukunka askariga ahi oo dalka ka jiray saddexdaa waqti baa ay sheekadu goljanno isugu ka xidhaysaa marka saddex shakhsiyadood baa ku jira ama saddex qof oo maaragtay magacyada ay heestu magacyo u bixisay oo magaca hore waxa la yiraahdaa gudcur hadaa gudcur maqashaan marka gudcur halka ka maqashaan halka waxa gudcur lama yiraahdo mala waxa la yiraahdaa gudcud iyo waxaankaas waa la mid way isku midun laakiin anigu taas un baa wataa ereyga gudcurka marka maqashaan waxaad garanaysaan in gumaysigii isagu wuxuu u taagan yahay gumaysigii baa hadlaya ama isagii baa la hadlaya gudcur marka maqashaan gurac marka maqashaan gurac oo qofte si guracan wax u qabta ama dabeecadiisuba guracan tahay gurac marka maqashaan waxa weeye waa sagaalkii sanadood iyo Soomaaliya iyo dawladihii rayidka ahaa ninka guray la yiraahdo isagu gacanti midigtiisu bidixda tahay waa ninka odayga ahaa maalmihii dhawey tagay oo isaguna guray ayuu sheekadan ku matilayaan marka saddexdaa qof sidaas baad ula socon doontaa waa gudcur oo gumaysigiya marka uu gumaysigu baxo ka kala soo galaya sagaalkii sanadood baa soo galaya marka kaasi baxo guray baa soo galaya yaana iskaga keen khaldamin saddexdaa shakhsiyadood ee sheekada ku jira waayahay waxay 380 baan marka anigu ka jawaabay heestii Xasan Gani waqtiga iskurayo hadba xaaja godadliyo ged la soo baxayo garashada damqaaye gudgudaha hilaaciyo geydha iyo fooraha Xasan Gani larkiisii goljanna ka dhalato galabta iyo sheekada gorgor yimi Hargeysiyo geeskan joognaa indhoweyd guhaankii gulcubu dhalayo gorgor iyo wax yaab liyo tuka hilib gadaayo xunsho geel la joogtiyo golle heeriye sidatiyo rati gorod madow iyo geesoole boqor iyo saadaal guracan oo guran waa la filayay ninkii beesha soo galay gonda dhigashadiisii rigar baa iskaga taag marna saari gaadada waa gogoldhigii baan ku jiraa weli margarkeeda feedhfeedh afka godan ku kaakici marna geesaheediyo kaga weehay goonyaha marna gaararkeediyo ka ilaali geed dheer marna caws u soo goo marna sheemi gaarkeed ka takooriyay gacalkeed gabankii iyo haweenkii
iyo gurungurcoodkii gurxan iyo colaad iyo gulguul u saarsaar waa dagaalkii uu ku qaadayey wixii ridaa u soo dhowaada ku gadoodiyey beeshii habeenkiina gaadhkii iyo gaafmeerka tarantiri habeenkiina ma seexdee waa ninka la yidhahdo waardiyaha ama gaadhka warka layskalaa bixi dabadeeto goobtii gurmadkii isugu yimi afka gacanta wada saar mar la yidhi ridaa guul gallad hoose wadato cidi aanay garanayn qaar baa ku macneeyoo yidhi waynaan garanayna wuxuuba ri maahe ridaaba weliyada oo amran oo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay mar la yidhi ridaa guul gallad hoose wadato cidi aanay garanayn marna gacal xijaabtoo gunno iyo xusuusiye laga gooyey samahoo godka lagu ilaawo isa soo galluubtiyo nin gargaar u dudayo gibil doorsan lagu sheeg marna aayad gaaroo xidid iyo gundheeroo rabbi soo guddoonshiyo geed la yaable lagu sheeg marna duni gablooshoo isa soo guray soo socotoo gudbay soo guuraysa lagu sheeg marna caashaq guuno goobayey beeshoo soo gaadhay beeshoo marna caashaq guuno isa soo marna caashaq guuno goobayey beeshoo rida garo jeclaadoo guurdoona lagu sheeg googaadu badatee xasanganina tiisii biyo gebi ka soo degay galka ay ku jeedaan gurdankooda sii raac godankiiyo ishii doon gunta hoosu sii baadh isagu markaa sidii loo macneeyey si ka xeel dheer ayuu u galay gorgorkii xamuuraa gacan haadis ugu yeedh dadka gooni uga saar gole xaadhan soo taag googoos u kala bixi gobannimo ku sooriye gelbi oo lugaysii gayigoo dhan soo mari gobolkana wax uga sheeg guji oo wax weydii fulay baa waxgaade go'e yidhi iskeensi xaajada guniya baar geeraar ku xadantee hal abuur gudbi oo isdhaafsii hal abuurka gaadhsii ragna galangal soo celi gabayana ka daba tiri intaasoo sheekadii guudmara ayaynu markaa u gelaynaa dulucdii iyo arrintii aan ka sheekaynayey gudcur baa arlada jira yani waxaa lagu jiraa waktigii gumaysiga gudcur baa arlada jira gogoshaa la jiifaa gama waa la maqan yahay goonyaha cabaad iyo gurxan baa ka baxayo reerihii barh baa guday waa gilgiladkii africa 1960kii ee africa ilaa mar bay wada baraarugine ay qaar ka mid yihiin intay tooseen ay guureen dee ka guureen gurigii yani noloshii hore gumaysiga ee ay u diga rogteen gobannimada sidaa ula socdo goonyaha cabaad iyo gurxan baa ka baxayo reerihii barh baa guday in la guuro weeyaan gaadiid ma laylyana waa soomaaliya garhwadeenka beeshuna gabadh buu ku xidhan yahay gobannimadii iyaduna galbeed iyo dhul fog bay go'doonkii iyo gocashada ku joogtaa wakti waa iskuraya markaa dee soomaaliya oo markaa iyaduna baraarugii africa ku toostay oo doonaysa inay guurto laakiin aan wax hore iyo qalqaalo hore iyo tabaabulshe hore iyo wax hore aanay dhicin goor dambe oo xisaabtii gebagebe ku dhowdahay ayaa gaariyow qaar gabrantii dayeysnayd garaadkii ku soo degay waa wacyigii siyaasiga ahayd toosidda tale laysu geegiyey dadku hawlo gaaxdiya gale baadidoonkii gudcur laysla soo taag markaa yani waxaa bilaabmay halgankii gobannimo doonka gudcur laysla soo taag gabadhii la weydiiyey geedka aan tagnuu yidhi garta jilibka loo laab hadalkiina go'i waa labadii dhinac gudcurbaanihiisii markuu soo gunaanaday guyo keena buu yidhi gucule orod la soo roor goolal soocan loo meydh ahminkiina loo gee gudcur baa haddana yidhi waxaa goobta keenteen magtii giibba maahee gashigii barh baa hadhay giib waa nin ingiriisa oo waktigii ingiriisku dalka ka talinayey raggii barasaabada dalka ka ahaan jiray ka mid ahaa dabeetana lagu dilay waddanka markaa markii gobonnimada la doonayey hawlihii la galay marka halkan horta waxaa bilaabmaysa wixii loo hurayey gobonnimada xooluu yidhi keena macnaheedu waxa weeyaan gobonnimada ku dagaalankeedii markii hore waxaa la huray xoolo
dabadeetna wuxuu yidhi ilaa hadda waxa gobonnimada idinkaga baxay ninkii aa meesha ku dishayna ingiriiska ahaa magtiisiiba ma dhamma ha magtigiiba maeda hanan laa gobolkana xilkiisa iyo geedigiisa koowaad garhwadeenka noqon laa golihii la dheehee hararada la goobiyo googooska lagu xidhay gelbiskii rugtii hadoodilan ugu geysay meeshii